halkan oo howlka tanada afasioni waxaa goordhow ka bilaaban doonta doorashada guddoonka sare ee golaha aqalka sare taas oo maanta loo madalsan yahay in halkan lagu qabto waxaa soconaysa qabanqaabadii ugu dambeysay ee howlka iyadoo senatarada ay imaanayaan halkan si codkooda ay u dhiibtaan islamarkaana ay doortaan guddoonkii hogaamin lahaa 4 sano ee soo socota golaha aqalka sare maanta halkan waxaa lagu dooran doonaa guddoomiyaha iyo labadiisa ku xigeen iyadoo oo xilka guddoomiyaha golaha aqalka sare ay u sharaxan yihiin ilaa 3 musharax oo uu ku jiro guddoomiyihii hore ee golaha aqalka sare cabdi xaashi cabdullaahi iyo laba wasiir oo ka tirsan xukuumadda kuwaas oo kale ah wasiirka warfaafinta iyo wasiirka dastuurka waxaa xusid mudan sidoo kale in guddoomiye ku-xigeenka koowaad ay ku tartami doonaan 2 musharax kuwaas oo kale ah senatar cabdixakiin macalin axmed iyo senatar cali shacbaan ibraahim waxaa xusid mudan in doorashada ugu adag ama ugu musharaxiinta badan ay dhex mari doonto guddoonka labaad ama guddoomiye ku-xigeenka labaad oo ilaa 7 musharax ay ku tartami doonaan taas oo sida la rajeynayo wareegyo kala qaadan doonta maadaama musharaxiintu ay aad u tiro badan yihiin marsharafka ayaa halkan ku soo ururaysa kuwaas oo iyagu ka qayb galaya korjoogteyn caalami ayaa sidoo kale jooga ciidamada ammaanka ee booliiska ayaa si gaar u sugaya amniga kuwaas oo iyaguna kaalmo ka helaya ciidamada howlgalka kumeel gaarka midowga Afrika ee ADMIS kuwaas oo ku sugan iyaguna howlkan dhammaan wadooyinka soo gala ee halkan ay ciidamadu aad u adkeeyeen amnigooda taas oo muujinaysa sida doorashadan ay aad uga taxadireen ciidamada booliiska waxaan si toos u soo gudbin doonaa dhacdooyinka halkan ka dhici doona ee guddoonka lagu dooran doono golaha aqalka sare iyadoo ay xusid mudan tahay in qaar ka mid ah musharaxiinta ay halkan soo gaareen kuwa kalena la filayo inay goordhow soo gaaraan wixii macluumaad ay ku soo kordha waxaa si toos ula socon doontaa warbaahinta qaranka oo si live idinkugu soo tabin doonta dhacdada halkan ka dhici doonto ah doorashada guddoonka sare ee golaha aqalka